xafladan oo ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta ciyaartooyda naadiga Dekada oo ku kala guuleysay horyaalka kubadda cagta iyo koobka kubadda kolayga ee Jarnaal Daawud ayaa waxaa ka soo qayb galay kusumaha wasiirka wasaaradda Dekadaha iyo gaadiidka badda ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda Ismaan Maxamed Cabdi Daalo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka qaar ka mid ah mas'uuliyiinta isboorti ee dalka ka jira khubaro isboorti iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay xogayaha naadiga Dekada Cabdullaahi Bashiir Nuur Kuwataro wuxuuna sheegay inay ku jiraan waqtigoodii ugu wanaagsanaatan in markii naadiga la aasaasay naadigan waxaa la aasaasay 1972 ilaa xilligan waa waqtiga ugu fiicnay aan ku jirnaa intaas wixii ugu fiicnay oo hadda la soo maray waa maanta waxaan u joogno 2016 horyaalkii aan qaadnay horyaalkii handballkana waa qaadnay kubadda cagtana waa qaadnay 2017 waxaan qaadnay kubadda cagta koob Jarnaal Daawud kubadda kolayga waa qaadnay waa xilligii inta u dhisnay naadigan ilaa 72 ilaa hadda waa waqtiga ugu fiicnay aan ku jirno gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo isna goobta ka hadlay ayaa ammaanay shaqada ay qabteen ciyaartooyda iyo macallimiinta kooxda Dekada oo ku guuleysay horyaalka Soomaali Premier League ugu horeen waxaan anaga halkaan uga hambaleynayaa naadiga Dekada oo markii labaad ku guuleystay horyaalka Soomaaliya waxa kale oo hambalay udara macallin Cali oo laba jeer ku guuleystay horyaalka Soomaaliya asigoo macallin ah asig ilma laba sano isku xigto ku guuleystay haddana Dekada laba isxigto ku guuleystay waxaan rajaynayaa marka oo hambaleynayaa waxaan leeyahay yaan lagu soo gaarin macallimo xildhibaan Maxamed Ibraahim Cabdi Diyeeshe ayaa mas'uuliyiinta wasaaradda Dekadaha iyo gaadiidka badda ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii kooxaha guuleystay uga qaybgali lahaayeen tartamada caalamiga ee dalka dibadiisa ka dhici doona wax intaas ka badan oo maanta ay oran doonaan ma jiraan laakiin wasiirka waxaan kula dardaarmayaa naadigan labadiisa qaybood way shaqeysteen inay safraan kana soo qayb galaan tartanada caalamka dhacaya inaad ku garab gashaan garab istaagtaan ee nagu dhiirigelin insha Allah ta'ala kusumaha wasiirka wasaaradda Dekadaha iyo gaadiidka badda ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda Ismaan Maxamed Cabdi Daalo ugu dambeyn xafladda ka hadlay ayaa bogaadiyay ciyaartooyda iyo macallimiinta naadiga Dekada wuxuuna dhinaca kala sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka tartamada caalamiga ah ee naadiga ku soo wajahan waa hambalyo inaan isugu nimid maanta dhamaanteen wada faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay guusha aad gaarteen oo aad u soo hoyseen magaca Dekadaha Soomaaliyeed oo aad u soo hoyseen shacbiga Soomaaliyeed oo aad u soo hoyseen taageerayaashiina waxaan anagana leenahay mar kale hambalyo aan idin leenahay diyaar waxaan u nahay wasaaradda Dekadaha iyo iyadoo kaashanaysa maamulka Dekada iyo maareeyaha iyo maareey ku-xigeenadiisa iyo dhammaan mas'uuliyiinta dawladda waxaan diyaar u nahay inaad ka qayb gashaan tartankaas hadduu Ilaahay yiraahdo naadiga Dekada ayay xil ciyaareedkan u ahayd mid aad u wanaagsan maadaama kooxaha kubadda cagta iyo kolayga ay ku kala guuleysteen horyaalka kooxaha heerka koowaad ee kubadda cagta iyo koobka kubadda kolayga ee Jarnaal Daawud Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho